xilli ay si dhamaanayso muddaxileedka madaxweynaha dalka ayaa waxa ay soo taray musharaxiinta ku hanweyn inay ku guuleystaan isla markaana ay mar uu noqdaan madaxweynaha Soomaaliya. Munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho ayay taageerayaashiisa ku sheegeen in musharaxoodu uu yahay Mustafa Maxamed Martin. Soo dhaweyn iyo taageerad kadibna waxay xuseen inuu yahay shakhsi ka soo bixi kara xilkaas, waxayna bulshada inteeda kale ugu baaqay inay taageeraan xilliga doorashada foodan ugu soo hayso. Mustafa Maxamed Martin oo ah nin maaragtay Soomaali iyo midnimadeed maanta raba inuu istaago kana soo jeedo gobolada waqooyi oo midnimada Soomaaliya awal keenay iyo calanka Soomaaliyeed 60 sano ka hor haday maanta keenay calanka Soomaaliya 60 sano ka bacdina aynu Soomaali soo baadgoobayno maantana maaragtay uu taagan yahay nin macquul oo Mustafa Maxamed Martin aad iyo aad baan u leenahay madaxweyne soo dhawow aad ayaa u soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa musharaxa waa soo dhaweynayaa cid hadda ka hor istaagtay oo tiri musharax ma noqon kartaana ma jirto haddii reebeen ayaga iska maqnaayeen oo hadda damac soo galay damacoodi waa la qaadaynaa Mustafa hadduu damac galay oo madaxweynenimada damacaas ka galay annaka Soomaaliyaan nahay Soomaali dhammaanteed yar iyo weyn saqiir iyo kabiir damaca waa ku jira laakiin kulligood tabarta u diidaysa بعد سنة حفلة لوين الناس وعلى طاي قف كاستروكسية ومشرح مدحوينه مصطفى محمد مارتن وعلنا مصطفى وعلنا سعودو تلكان وحدنا تتكاسو هري سلام عمرين إن شاء الله هذا نصيب كاجا يتقارن ده تعديل اللي هذا يوحي أتكاشو نعمل كوضنك أتصل شرعي إن شاء الله ديال اللي هذا مصطفى سوماليو بربرسون oo 30 sano dagaal ku jirtay oo rafaaday oo muxuu ahay barakacday aad u soo socotaa waxaan kugu dardaarmayaa hadduu Ilaahay nasiibkaaga siiyo oo Soomaaliya aad madaxweyne u noqoto wax badan baa Soomaaliya ka baaba'san dib inaad u eegto haddaan heli karno ninka waa soo dhaweynaynaa Soomaali committee soo dhaweynayno waxaan doonayaa hal kelmad anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolada waqooyi madal kulmisay anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolada waqooyi haddii la doonayo Soomaali mid ah waqooyi iyo koonfur oo midooba waxaad u hiilisaan codkiina ololihiina iyo kaambeynkiina madaxweynaha mustaqbalka 2021 Mustafa Maxamed Martin anigoo ka hadlaya magaca siyaasiyiinta reer Digil iyo Mirifle musharax Maxamed Markis Muuse Maxamuud Jiisow Star TV Muqdisho.